meesha la carigaabo ka soo gurmaday shuban ka dilaacay meesha la yiraahdo dhahar degmada dhahar dad badan waa ku dhintay dad badanna waa soo daatay kadibna waxa weeye laba tiim oo caafimaad iyo laba ambalaas dhaqaatiirtii ah ruuxaantii waxa weeye waxaan nimi ilaa intaan nimi hawsha gacanta ayaa lagu hayay waxaan loo nimi dad badan oo soo daatay dad badan waa ku dhintay ilaa 8 qof aan maaynayaa waa ku dhintay meesha dad badan oo jiifana waa loo nimi intii haddeer dhaqaatiirta ayaa ka warbixin doonta intii haddeer aanu joognayna dad badan baa soo daatay waxaan codsanayaa dowladda Soomaaliland iyo madaxda islaamka iyo cid kasta oo taakulayn karta halka ka soo taakulayn karta cid Allah cidii soo taakulayn karta oo bini'aadanimo ku soo taakulayn dadka bini'aadanka inay soo taakulayaan oo si fiican baa Ilaahay inagu suurtageliyay wax dhintay intii aan joognay haba yaraatena ma jirin baahida jirta imika weeye beeshanadii waxa weeye beeshanada badan baa jooga xaafadihii ku jiraan wali isbitaalkii soo gaaray waxa loo baahan yahay difasha fiican loo sameeyo dadka wali biyaha ka cabiyaan biyo wasakhaysnaa ku jiray ceelasha ku jiray dhaanka ku jiray marka waxa la doonayaa sidii kuwa looga hortagi lahaa kuwa imika waa la daweeyay laakiin wali factorkii meesha problem ka soo baxay wali wuu jiraa dhaxareed waana xaalad way degan tahay intaa waxa ka dhiman oo lagu kordhinayaa sidii dadka loo wacyi gelin lahaa وحاولت الله سكانترول لها وحاولت weli wuu jiraa irihiina way jiraan waxa weeyaan markii hore dhibaatada keenay biyihii aan nadiif ahayn marka sidii kaloorin